أبو قلابة وحكم بها علماء التابعين طبقة الدحاء نسق أبوها أصحاب الكتب الستة وحوريين عبد الله بن زيد الجرمي أي الرجل وأنا الله امتحاني وأنا صبرين كان من الصابرين هل قصوا النقلية هي العجيبة إن الله إذا حب قوما ابتلاهم هذو إلهي قلتش على هذا وامتحانا marka haddii waxa weeye imtixaanka qofku ka soo baxo oo ku sabro waxa noqonayaa dee ruux fadli badan lama gaarayo sidaas aawadeed ayaa aakhiro dadkii ahlul balaaga ahaa dhibaatooyinka lagu imtixaanay sawaabka iyo ajarka weyn la siinayo daraadeed waxay jeclaysanayaan dadkii ahlul caafiyaha ahaa yaan masaa'ibka iyo dhibaatooyinka adduunyada kula kulmin markay adduunyada joogeen in jirkooda la googoyn lahaa bay jeclaysanayaan si ay sawaabkaas oo kale u helaan waxa la yiraahdaa inan buu lahaa waagii dambe waa xanuunsaday addimada iyo gacmaha mid walba awood waa ka tagtay waxay noqotay qaar aan u shaqaynayn gacmo iyo addimatoona indhihiisina waa daciifeen waxay noqdeen inaan wax ku arkayn dhigiisi waa cuslaadeen indhihina waa daciifeen awoodi ma jirto saas u yaallaa inan buu lahaa inankii baa u khidmayn jiray xilliyada salaada u weysayn jiray maalintii dambe inankiina waayey meel cidla khaymad ka dhisan baa nin soo maray wax u shaqaynaya waxa jira carabkiisaas baa si fiican ugu shaqaynaya ninkii baa u yimi saa wuxuu leeyahay إلهي بو مهدنا غياه الحمد لله الذي أنعم علي إلهي بو مهد له ومهد أسقناتي إلهي إن نعمي النعمة إيقا فضل إن بدن وخلقي سكمدا وحاول يديبوا النعمة إلهي كسيئة كاقا فضل إيدتك محيطاي مركز نعمة اللسامة من ذلك نعمة عربك حاضر لك تيبوا وحو يلي اسكدا وحكا لها دي إلهي أرلد إلقوا إن لها بورها يقول بابي إن لها إركا يقول سوري لها ربي والشكر نقلها وأركا إن عد أخذ ما ينسي عد بشرين مركو ويدي وحد نوع إن باتشري حل هذا صلاة يويسين شري ينخذ من شري إن كي مدة صدح مع الموضة ما هي حتى ضوح إيقا بنا يصاب برضو إنك يصاب بعد وأكدت جيبوا يقولون إن يرمر كان صعدي أيام وحنا ركي ميتك إنك وهل كان يالا ميلان أدب أفقين وبهالدلين وحنا أطلوا ميات كلنا نغنكرتا كو ورنكرتا إنك واردنتي مكود عدا روحي سيدس أها ميات ساكو ورنكرتا كدب waxaan xasuustay qisadii nabiyullaahi ayyub ayaa xasuustay yasada loo imtixaanay markaasaan qisadaas ka horeysay hadalka una sheegay waanu imi waa salaamay wuxuu miyada ahay ninkii hadeer ila hadlayay markaasaan ku yiri ha markaasuu dantayda maxaad ka qabatay markaasaan waxaan ku yiri buuri nabiyullaahi ayyub iyo adiga ka ilaahay agtiisa ku sharaf badan markaasuu yiri ayyub markaasuu yiri ilaahay waa imtixaanay ayyub xaqi ubadkiisa xaqi ehelkiisa xaqi naftiisa mid walba waa imtixaanay sidoo noqday مركزية شاكرا صابرا حامدا بالشكر نقية والصبراية وربي وحمد النقية إنه يهي سداس أيو نوع وحلو حلقوا امتحاني إن يدتكي حتى مركا أي كرد إرادان أو كلي النقضة لقطه بمعنى زوجتي سيمو ين عد كلا بين كهرين كيف وجده شاكرا صابرا حامدا هذا العين كسوع عليه مروا البنساس وقت شوابا وحلو أوجز هذا الكسوكوب كورن حاجدي مركزية إنك واردن تبه البدري مركزية وحلو إلهي بما هذا له تفسير عاصدة أنا يقربين تفسير عاصدة النار قشة إله أنا يقربين أيام ما هذا له يرد بديد أيا شهقة هذا نفسي أخذ واحد نقطة يقولين المركة أرجح يسي كره وأي أنا وكلي ما أسكره عدلنا كجمة يكره مرضان صار ويسكت الفريستي أنا وكد الأويب الله سأنيل وأكرمه حاجة مركان شوقي أيا أفرنين الصعودة بان صومري ونوصل لحدين خيمة عدل كرسان qisadii baan u sheegay waxay yiraahdeen bal marada ka qaad wajigiisa inaanu garanno waan ka qaaday buu yiri dadna waa garteen wajiga ka dhunkadeen iyo indhaha markaasaan ku yiri buu markaa waa kuma waxay yiraahdeen waa saaxiib ibn Abbas bay yiraahdeen indhaha ka dhunkadeen markaasay waxay yiraahdeen in badan baa indhahani ilaahay dartii u ooyeen wajigana in badan ayuu ilaahay u sujuuday adoo sidii bay ku aaseen marka ala kulli xaal waa la imtixaanay waanu sabray kana min as-saabiriin